السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برشاد iyo daraasaynta siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa waxna looga baahan yahay kudiyashadeedana waa waajib diini ah oo nasaaran sidoo alla quraankiisa inoogu sheegayba nabigeena waxa inoogu sugnaatay kudiyasho wanaagsan laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa macluumaad kooban oo tilmaamayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Macluumaadkan waxaa iskugu kan soo duway Cabdullaahi Axmed Master Lixle oo kaga mahad celinaya dadaalkiisa. Sida aan wada ognahay nasabka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ama abtirsiinyihiisu wuxuu galaa Nabiyullaahi Ismaaciil oo uu dhalay Nabi Ibraahim. abtirsiinyada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay u qaybsantaa saddex qaybood. qaybta ugu horeysa waa markii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo bilaabay ilaa laga geeyo Cadnaan, waana qaybta culimada islaamka oo dhan ay isku wada waafaqsan tahay. qaybta labaad oo iyaduna ka bilaabanayso Cadnaan waxay ku eg tahay ilaa Nabi Ismaaciil, hase yeeshee waa qayb ay culimada islaamka isku khilaafsan tahay. qaybta saddexaad oo ka bilaabanayso Nabi Ismaaciil ilaa laga gaaro Nabi Aadam aad ay u adag tahay xaqiijinteeda inay tahay mid sax ah. waxaan soo qaadanaynaa qaybta ugu horeysa ee culimada islaamka isku waafaqsan yihiin, waxayna u dhacaysaa sidan: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فار ابن مالك ابن نضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. rasuulka sallallahu alayhi wasallam jilbikiisa waxaa la oran jiray reer binu Haashim, waxaana loogu magac daray awowgiisii labaad Haashim bin Cabdulmunaaf. Haashim wuxuu dhalay 4 wiil oo kala ahaa عبد المطلب بن هاشم، أسد بن هاشم، أبو صيفي بن هاشم، نضلة بن هاشم، iyo 5 gabdhood oo kala ahaa شفاء بنت هاشم، خالدة بنت هاشم، ضعيفة بنت هاشم، رقية بنت هاشم، حية بنت هاشم. waxaa 9 koodaba ugu yaraa Cabdulmudalib oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam awowgiis. Cabdulmudalib wuxuu dhalay 10 wiil iyo 6 gabdhood. 10kaasi wiil waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihiis. Cabdullaahi wuxuu ahaa midkuu ugu jeclaa awowgiis Cabdulmudalib caruurtiisa, wuxuuna u guuriyay gabadhii ugu sharafta badnayd reer Maka, Aamina bint Wahb, rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. Cabdullaahi wuxuu geeriyooday Aamina oo qaaday uurkii nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaana lagu aasay Madiino. nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadiis waa آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فار ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii Aamina waxay geeriyootay ayadoo ka soo socotay Madiina oo ay ku tagtay booqasho ayadoo wadata nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna socotay Maka, maraysana wadada gaar ahaan meesha lagu magacaabo Abwaa. haddaan halkaa ugu gudubno nabiga waalidiintiis, waxaan cashirkeena labaad ku soo qaadanaynaa hadduu alle idmo dhalashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo soo barbaaritaankiisii ilaa geeridiisii sallallahu alayhi wasallam. waan idinkaga mahad celinayaa la socodkiina aad la socotaan barnaamijyada aan halkan ku soo bandhigno. waxaa xasuusin mudan daawade inaad janaalkeena subscribe saarto haddii aadan hore u saarin, calaamadan gabaleelkana inaad furato si ay barnaamijyadeena kale kuu soo gaaraan. waxaa kale oo xusuusin mudan in habeenka Jumcaha 9 habeenimo ama 3 saac inuu inoo jiro barnaamijkii ahaa maxaa taqaan su'aal iyo jawaab, wuxuuna ka bixi doonaa barteena WhatsApp-ka. linkiga WhatsApp-keena waxaan kuu soo dhignay description-ka hoose, taabo oo ku soo biir haddii aad ka mid ahayn. waadna mahadsantiin.